وحليلهم ونحب الشيشة هي حاف فراح وحليلهم عبتان على شيشة بيغامر نوره $5 شيشة waa codka nin fadhiya miis yar oo yaalla iridda laga soo galo goobta aan tagnay oo aan doorannay in aan magaceeda qarinno si aanay baahinteennu u sababin dhibaato kale si ay ugu yaraan hoos ugu dhiganto dhaqanxumidan waxa uu u eg yahay khasnaji waa da'aadda 40 jirka waxa uu qofka gelaya ka iibiyaa hadba waxa uu doonayo in uu cabo halkan kama gudbi karo qof aan ugu yaraan iibsan maandooriyaha shiishadda oo uma gudbi karo dabaqa labaad oo ka kooban 5 qol iyo barxad weyn oo ay yaallaan kuraas si meegaar ah loo dhigay sidaa awgeed waxaannu ka iibsannay 2 shiishad ah oo uu naga siiyey $10 garaafo cabitaan qara ah iyana joogta $3 waxaa la yaab leh in aadan gudbi karin haddii aad iibsato cabitaanka caadiga ah sida kan ka samaysan qudaarta intii aan la joognay qofka naga iibinayay shiishadda waxaa soo gelaya goobta dumar dhallinyaro u badan oo inta gaadhaha soo banneeyey hadba saaraya mid ka mid ah ragga goobta taagan si ay u iibsadaan khamri xashiish iyo badeeco qofka noo fududeeyey in aan galno goobta ayaa weydiiyey adeegga xagga sare ka jira iyo in la heli karo goob gaar ah waxa uu u sheegay khasnajigu in qof dumar ah oo qaabilsan bixinta adeegyada dabaqa sare uu joogo oo uuna siinayo waxa aannu ka codsanno sidoo kalena aan heli karno qof adeega ah ama kabalyeeri noo sharaxa cabitaanno uu ku sheegay hot drinkis ama cabitaannada kulul kadib markii aan dhiibnay lacagtii oo aan qaadannay 2 tikib oo muujinaysa waxa aannu dalbannay ayaannu raacnay jaranjarada waxaannu gaarnay dabaqa sare waxaan aragnay dad aan ku qiyaasnay ilaa 50 qof oo si saf ah ugu fadhiya kuraas tiil barxadda jawigu sidan ayuu ahaa goobtani waxa ay si xoog badan u shidan tahay habeenka axadda oo la isugu yimaado ilaa iyo 8 qof oo ah 4 rag ah iyo 4 dumar ah ayaa gacmaha ishaysta oo hadba dhan isu rogaya waxay noola muuqatay in ay soo guuriyeen qoobka ciyaarka filimada hindiga ah ama kuwa bulshada bariga afrika oo caan ka ah waddamo ay ka mid yihiin kenya tanzaniya iyo uganda dumarku ma aha sidii ay hooyadood ku dhashay ha yeeshee dhar ma sitaan ragga la qoobka ciyaaraya ayaa waxa ay u labisan yihiin sida madowga maraykanka gaar ahaan kuwa sida waalida ah u ciyaara muusikada dadku waxa ay u wada fadhiyaan wiil iyo gabar waa laba gabadhii iyo wiilkii wada fadhiyaaba waxa ay si wadaag ahi u nuugayaan tubo ku rakiban haan xagga sare uu dab ka baxayo sidaa awgeed qaac madow ayaa laga yaabaa in uu ku caburiyo oo aad neefsan weydo kooxda ka socotay mustaqbal qaarkood maanay aqoon in ay maqleen mooyaane shiishadda iyo sida loo cabo qofkiina loo soo tilmaamay ayaa noo yimid oo noo sheegay in aan hadda dalban karno cabitaannada kale dhowr qol ayaa jira halkan waxa ay gaar u yihiin khamrada iyo xashiishka qolalkaasi iftiin ma laha inta lagu cabayo xashiishka ama khamriga waxaa keliya oo aad arki kartaa dadka fadhiya oo rag iyo dumarba leh qofkii doonaya in uu galo waa in uu sugaa inta ay ka soo baxayaan dadka ku jira marka ay dhammaato heesta qoobka ciyaarku oo ay tan xigtaa bilaabanayso ragga fadhiya meesha ee doonaya in ay markoodii qoobka ciyaaraan waxa ay dooran karaan gabadhii ay doonaan ee fadhisa goobta sidaa awgeed dhowr mar ayaannu koox ahaan ka cabsannay in nala doorto oo aan ka mid noqonno qoobka ciyaarka ha yeeshee ma aanay dhicin intii aannu fadhinnay waxaa soo gelayay dumar fara badan oo markii ay fadhiistaan loo keenayey wax ay cabaan waxaa la yaab lahayd in hadba 2 qof ee sida xishood la'aanta ahi u ciyaarta in sacab iyo qosol loogu dhufanayay muusikadan waxaa ku ciyaarayay gabar iyo wiil dhallinyaro ah oo si aanan qiyaasi karin isula qoobka ciyaarayey arrinta kale ee la yaabka lihi waxa ay tahay in goobtan iyo kuwa la midka ihi ay qaarkood leeyihiin fan iyo heeso u gaar ah oo midhaha heesahaasi iyo waxa meesha ka socdaa ay isleeyihiin heesta soo socotaa waxa ay ka mid tahay kuwa loo wada istaago ee rag iyo dumarba layswada ruxo xitaa waxaa soo baxa dadka ku jira qolalka kale waxa luma dareenka iyo isxakamaynta qofba meesha uu joogo ayuu ka soo ordayaa marka ay heestani dananto iyaga oo aan dhar fiican wadan ayay haddana dumarku iska tuuraan calalada yaryar ee ay sitaan
kadib qoobka ciyaarka iyo isku dhexyaaca ayaa bata. tabaha dheesha tusaala aan ku tilmaame tumashada hagaagsan tabaha dheesha tusaala aan ku tilmaame tumashada hagaagsan talaabo laaflaafyayinta hablaha ku toosan. inkastoo aynaan gaarin waxa ay noo sheegeen dad aan iswaji garannay oo goobta yimid in iftiinka oo dhan la demin doono marka ay gaarto 3 saac. sidaa daraaddeed ayaannu ka soo baxnayba 8:50 daqiiqo. waxa aan tagnay meel kale oo iyana ka mid ah goobaha dhaqanxumidu taal. tani waxa ay ka nadaafad roon tahay tii hore oo ahayd meel aad u qurmoon, sababtaasna qofkiina hagayey waxa uu noo sheegay in ay tagaan dadka maandooriyaha isticmaala ee aan dhaqaalaha haysan. ha yeeshee goobtan labaad waxaa yimaada dadka dhaqaalaha haysta ee doonaya in ay tuntaan. waxaa ku jira dad magac ku leh Muqdisho, lagana yaabo qaarkood in ay hayaan xil umadeed. hool ku yaalla dabaqa sare ayaa waxaa ka socda qoobka ciyaar aan ka dhicin kii hore. ha yeeshee eryada iyo heesaha lagu ciyaarayo waa midho iyo af aan fahmi karnay. goobtani waxa ay ka dad badan tahay tii hore. dad aan ku qiyaasnay 100 ilaa 150 qof ayaa fadhiya. sidii tii hore ayay leedahay qolol gaar ah oo aan dadku wada gelin. shiishadda ayaa la wada nuugayaa. waxaa tan u dheer waxa jooga dumar timaha soo gaabsaday oo da' ahaan ka waaweyn kuwii aannu ku soo aragnay goobtii hore. tani waxa ay uga duwan tahay tii hore. dumarka soo gelaya ee aan gawaarida wadan waxa ay ku yimaadaan dhar caadi ah. ha yeeshee waxa ay sitaan dhar kale oo ay ku labistaan marka ay soo galaan goobtan. qaarkood ayaa ku labisan goono gaaban iyo rajabeeto ama kayshali. waxa ay dhexda haystaan dhalooyin dhaadheer oo xagga sare u dhuuban. meeshii goobtii hore ay yaalleen codbaahiyayaal waaweyn iyo heeso duuban, tani waxa u jooga dad u heesa oo inta masraxa u fuula hadba u saara waxa ay doonayaan. waxaan isku daynay in aannu raadinno bal cid mas-uul ah oo ka mid ah goobta. ha yeeshee xagga sare waxaa bixiya adeegga dad qudhoodii ku tuurta qoobka ciyaarka marka ay doonaan. adeeggu ma wada gaaro dadka. sidaa awgeed haddii aad doonayso in aad wax dalbato ama aad goobta sii fadhiso, waa in aad ku lamaanan tahay qof dumar ah oo la hadasha dhowr gabdhood oo bixiya waxyaabaha la cabayo. axmed cilmi diini waxa uu shahaadada baajularka ka diyaariyey daraasaadka islaamka. waxaannu weydiinnay waxa ka dhalan kara tumashada iyo dhaqanxumida ku soo kordhaysa Muqdisho. waxaan ka dhalan karaa maalan daacunaha ka dhalan karaa, waxaa ka dhalan karaa amniga ilaahay uu ku manaystay dadka uu siiyey in dib loola laabta ayaa ka dhalan karaa. waxaa kaloo ka dhalan karaa in amni daradii ay sii ballaarato. waxaa kaloo ka dhalan karaa sharaftii insaaniyadda inay hoos u dhacdo ayaa ka dhalan karaa. waxyaabaha ka dhalan kara waxaa ka mid ah roobka inuu yaraado. maalan roobka haddii ay yaraadaanna waxaan dareensannahay in thimaartii ay yaraanayso oo isku xiran tahay musalsalba. haddii thimaartii ay yaraatana risiqii ayaa yaraanaya. waxyaabaha wax la soo koobi kara ma aha. faaxishada sideedaba nataajka ay soo saaraysa ma aha mid khayr ah oo lagu farxay ma ahan. marka waxaan alla ka rajaynaynaa ilaahay inuusan noogu qabanin carada, alla oo noogu naxariisto inta salaada dukanaysa iyo culamaa u diinka iyo dadka dacafada iyo xayawaanaadka iyo masaakiinta gacmahooda kor u taagaya in ilaahay noogu naxariisto. cali xalane waa mid ka mid ah garyaqaanada Soomaaliyeed. waxaannu weydiinnay adeegsiga maandooriyaha iyo sida uu caalami ahaan u yahay mid dembi ah oo dowladaha adduunkuna inta badan ay ku yihiin heshiis in la mamnuuco. maandooriyaha horta sidiisaba meel walba iyo dal kasta qaanuun samaawi ah oo ilaahay qur-aankiisa markii loo fiiriyo iyo qawaaniinta wadciga ah ee dadku ay qortaan, labaduba waxay leeyihiin wax kasta oo ruuxa bini aadanka ah maskaxdiisa wax ka bedeli karo ama doorin karaba waa crime, waxa waaye waa dembi. marka ma bannaana sideedaba in maandooriye loo qaato ama loogu fakiro inuu yahay wax qofka uu isku madadaaleyn karo
ama wax qofka uu isku dhaafin kara maalinta adag ee dul saaran guud ahaan marka aan fiirino waxaan u arkaynaa inay tahay midaan la qaadan karin oo mujtamaca u keenayso mustaqbal xun gaarsiinaysana waxyaabo aad u fool xun inuu ka dhaxlo. ciidanka asluubtu waa kan ugu fiican ee arrintan dhaqan xumida wax ka qaban kara. waxaanu la xiriirnay taliyaha ciidanka asluubta ilaa 4 goor ballan ayaanu ka samaysanay si aanu arrintan wax uga weydiinno. ha yeeshee markii aanu u tagnay waxa uu noo sheegay in aynan balansanayn si aan lahayn wax cudurdaar ah oo la sheego. axmed cilmi diini waxa aynu weydiinay sida ugu suurtagalsan ee ciidanka asluubta iyo hawshooda loo caawin karo dadweynaha iyo dowladdaba. taas waxaan u kala qaadayna waxaan isdhihi ani fikir ahaan 2 siyood ayaa loo caawin karaa ciidamada asluubta. mid waayo ciidanka laftirkiisa inuu kusoo xirmo shacabka inuusan iska faquuqin ah. mid waayo central system in lagala soo xiriiro ciidanka nafsuhu. maanta haddii loo baahdo in faaxishadaas